dhacdadii ka dhacday 26 bishan ka siiyo waxa ku dhintay maxbuus kamid ah maxaabiista ku xiriyeed xabsiga dhexe ee xamar qaybta Shantaraale maxbuuskaas wuxuu ku xiraa article 221 la yiraahdo ama qodobka 221 la yiraahdo ku xiraa maxbuus kale oo isku ay qodob ku xiraayeen ayaa wax ka gaareen sababtu waxay ahayd maxaabiistu waxay ciyaartaa ciyaar kubadda cagta ah kooba u furan koobkii furay ciyaar kamid ah ayaa socotay waxa isku dhacay laba maxbuus oo isfiiray sida caadada ciyaartu tahay garsooriga ciyaarta labadii maxbuus isfiirtay mid kamid ah ayuu wuxuu u taagay rosa ninkii asiga ahaa waa la qabtay mar labaad ciyaartii waa laga saaray waana la xiray oo qolka canaanta xabsiga ayaa lagu xiray waa ninkii labada marba gacan qaadka sameeyay ciyaartii waa dhamaatay ninkii ciyaartii ku jiray oo labada marba ninku dulmiyay baa wuxuu yiri nabara igu yaala meel bay xanuunaysa okay waxa uu tagay heegankii joogay markaas ee caafimaadka iyo taliyay xabsiga wax weyni kama muuqan ninka oo markaas isbitaal iyo sakoolso iyo yani maxaan ku iraahdaa loogu qaato dhib weyn inuu qabo kama muuqan ilaa maqribka adiga inta u dhaxayda waxa dhacday in maxaabiistii ay soo garaacdo albaabka qolkii uu ku xiray ninkaasi iyo maxaabiista kale qayladii iyo garaaci hadii la maqlay taliyaha xabsigu xaadir buu ahaa wuxuu amray albaabka in la furo la garaacayo in la fiiriyo oo waxa ka jira meesha la ogaado maxaabiista waxay sheegeen in meed dhex yaalo منصر محمد عبدي